سلام الله عليكم صاحب بيال ميل والبود جوكتان إيه سي والبود إيدا ونيسان هبين ونكسن عاو أرنتا إريتريا ستة وصن إيه ستة بن إنا واه الله ربا أنا نوحبا أورنيني أنا هو كميد ماهي تيم كعليرا أوه جاميو إيه آمسان أمد إيه وح أقرأيان إني عقليا إيه كليتان أما عقلية dadka laga dhiga karo weel wax lagu shubto anigu kamid maahay anigu waxaan qabaa wiil kasto iyo gabar kasto iyo oday walba iyo hooyo walba ama abo walba ama weel Soomaali intii daawanaysa aniga in qaar badan iga cilmi badan yihiin iga aqoon badan yihiin iga xeel dheereysan yihiin iga da'weyn yihiin iga khibrad badan yihiin kuwana aniga aan ka fiirsanay dadku inay intaas isugu jiraan qaba mar haddii aragti noocaas aad ka duuleysana qofku wuu xishoonaa waxbuu isku lahayaa laakiin nimanka la yiraahdo CBB dadku waxay u haystaan aabood farmaajo ka keeneen in dadka aqligooda wixii raba lagu shuba karo lagala soo bixi karo aflagaaday ku tahay maskaxda ummadda Soomaaliyeed taas aflagaad ku tahay waayay maxaa taas ku keenay markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku jiray campaign-ka madaxtinimo oo uu ku guuleystay intii lagu gudo jiray campaign-kaas wuxuu sheegay in ciidanka Eritrea halkaasi ay dib badan kala kulmeen ciidankii Soomaaliyeed ee Eritrea loo qaaday wuxuu ballan qaaday in ciidanka Eritrea la geeyay uu dib u soo celin doono haddii la doorto hada nin murashaxa uu sheegi lahaa oo campaign ku jiro waa kaligiisna murashaxiinta dhan iyo asxaabta kale iyaga hadda waxay keeneen horta waxay ka naxeen safarkii Eritrea madaxweyne Xasan Sheekh uu aaday il iyo carra ka daran ma jirto iyaga dhankooda oo maxaa dhacay aqliyada dadka oo ay seer rabaan ka yeelan jireen ayay marinkan uu hagayaa uu saxaya marin walba oo hagaya dadka oo kuridaya dariiq saxsan ayaga mar rabaan oo caliyara hogaamiyo waay dadka waa in mar loo sheego in fariireytan ay tahay marsuul ay tahay aysan fahmaynin because qarannimada kugu yar wadani ma tiid kan suul waay dadka in la dhaho waay waxay necab yihiin qofka dhaho kan suul maahay fariirey waaye madaxweyne Xasan ciidamada Eritrea oo hadda uu u tagay maanta in sawiradii ugu horeeyay laga arko waa bilowga 5,000 oo waalidiin ah farxadooda waana bilowga calool xumada uur ku taalada xiqdiga iyo xaasinimada qoladii 15 May Ilaahay ceebeeyay oo ummadda iyo dunida uu Ilaahay ku ceebeeyay fashil maanta muruga u bilaabatay laakiin anaga maxaa noo muhiimsan aniga iyo boqolaalka kun ee halkan daawanaysa iyo kuwa daawan doonaba 5,000 oo hooyo iyo 5,000 oo aabe oo faraxsan ayaa iiga qiimo badan aniga wax walbo kaas iiga qiimo badan waxaan sarraa mid marka oo la isku qalday oo ummadda lagu marin habaabiyay oo ummadda ma taqaana dariiq qaldan wax loogu sheegay ciidamada Eritrea ee Soomaaliyeed warkan anoo igu soo laabanaya ciidamada Eritrea ee Soomaaliyeed ee 5,000 ee madaxweynaha hadda uu u tagay ma wada nool yihiin oo 5,000 ma yihiin maya ma wada aha 5,000 أنا كو حقيجنايا مدحوينها لبدا بورود إيرتريا دحديدا كيالا إذا مدا ستيلوين كو جيرين 5,000 maahan laakiin 5,000 buu farmaajo sheegay 5,000 buuna qaaday isaga saddex horta halka ay sarta ku qorsantaa waxay taaba 3 sano tababar kala fulay muxuu Eritrea waxaan Turkiga wax lagu tababaraa Soomaaliya dalal badan oo Uganda ay kamid tahay lagu tababaraa 3 sanaad sheegay sanad tababar qaat ma jirin maxaa ku hoos duugan ummadda aqligooda yaan laga dhigin weel wax lagu shubtay laga dhigan 17 jirka Soomaaliga ama 16 jirta Soomaalida ay gabadha wax badan oo anaga aanan fahamsanayn ay fahamsantahay ciidamada ma la xasuuqay baaba ma laga dhigay maya lagama dhigin ciidamadu jab ma gaaray dhaawac ma jiraa dhimasho ma jirtaa dagaal ma galeen haa way galeen waa dhaawacmeen waa la dilay wax waa dileen anaga uma dirsan laakiin ciidan inay wax dilaan ama la dilo waa shaqadooda laakiin markii awaamirta qaranka ay ka fusho waay ciidamada Suudaan intay Iiraan taga wax ma diri karaan
laakiin ciidamada suudaan carada suudaan waxay doonay ku dili karaan sax iyo qalad anaga eritrea uma dirsan etoobiyaan kala go-ay waa eritrea iyo etoobiya inay maanta wiilka hadda waxaa laga yaabaa eritrea dhulkii Tigray ku dhintay ee Soomaaliga ah in aabihiis uu ku dhintay dagaalkii 77 isagoo Etoobiya Soomaaliya ka xoreynaya awowgiis uu ku dhintay dagaalkii 77 halka Etoobiya dhexdeeda ku dhintay aabayaashaas soo ayaan darama adduunka aqro awowgeeyo cara Etoobiya ku dhintay isagoo Soomaaliya difaacaya ileen Eritrea iyo nimanka la yiraahdo Etoobiya waa hal wadan isku aan jireen waa Tigray go-ayuun soo ayaan daramaha in awowgeena uu ku dhintay Etoobiya isagoo Soomaaliya difaacaya aabahayna uu Etoobiya ku dhintay isagoo Soomaaliya difaacaya ayaan dara ka weyn ma jirta anigana inaan isla Etoobiyadas ku dhintaan oo Etoobiya kala difaacaya ceebta farmaajo uu la joogi lahayd taas waay waxa la rabo meediyaha in lagu qarino taas waay ka dagaalanka Etoobiya ee ciidamada Soomaaliyana warbaahinta reer galbeedka oo dhan qoran Mareykan Ingiriis iyo reer galbeed oo dhan Xasan Sheekh aniga iyo boqolaalka halkan daawanaysana waxay la mid yihiin ummaday akhrista bogga hore ee wargeysida ka soo baxa Western in maanta intii noolna la badbaadiyo Ilaahay wax badbaadiyo intii dhaawacana loo booga dhayo intii dhimatay qasaarahana la sheego sharafay u tahay Xasan Sheekh iyo qaranka Soomaaliya haddii wax kale ciidankaasi loo haysto waa dhici kartaa dhaqaale nooc walba hal mid baan rabaa laakiin madaxweynaha qaranka in farinta la gaarsiiyo arrintan waxaa fahmi kara dadka siyaasadda u dhundaleela ama shaqadooda ay tahay waxaa laga yaabaa madaxweynaha Eritrea inuu Soomaaliya madaxweynaheeda as a diplomatic protocol ahaan uu kala hadlo qasaare gaare ciidanka laakiin madaxweyne afwarka uu ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh inaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka laga qariyo waa suurtagal in madaxweyne Xasan Sheekh uu ka gaabsado arrintaas isagoo siyaasadda gobolka ilaalinayo waa laga yaabaa laakiin afwarki waxa milyan jeer uga qiimo badan Xasan Sheekh Maxamuud ummadiisa uga qiimo badan ummadiisa ayaa uga qiimo badan madaxweyne Xasanow markaad hadda mirinaayo fadhisay oo aad farmaajo diidaneed oo xukunka inuu meesha ka baxal la rabay oo adigoo hormuud aad u tahay mucaaradka afwarki intuu ku soo qabtay filla Soomaaliya kuma fadhiisin ee ummadaadi ku fadhiisatay iyagaana xaq u leh inaad runta u sheegtid oo wixii farmaajo u qalday jacayl farmaajo iyadoo aheenba siyaasad ahaan laga wada labada oday afwarki iyo Xasan Sheekh ay ka fadhiistaan waa suurtagal asaga alle anagu maahi Cabdiqaadir Boos aanan madaxweynihiisa dhigi karin saas yaa la sameeyay madaxweyne aniga madaxweynaha nin ahaan uma jecli sida ragga qaar ay farmaajo nin ahaan u jeceliin nin ana ma jeclan karade naag nin jecelna kama shaqeeyo nin jecelna kama shaqeeyo annaga qarankan ayaana deeqa cidii wax ku soo siyaadinaysa annaga Xasan iyo Xamse iyo shakhsiyaad waay qarankii matalan madax waaye waa la tuusinayaa haddii tuusiyihiinna waa la sii riixayaa na waa la leeyahay xabiib malaayiin laakiin waxaan aragnay dhaqan siyaasadeed fasahaad ah oo nin uu ku leeyahay nin farmaajaan jecla aniga laba nin oo is jecel anaga kama shaqeyno naa kule ani farmaajaan jeclahay annaga qaranaan jecelnahay dal baan jecelnahay diin baan jecelnahay dad baan jecelnahay ciidamadan hadda naga maqanay 5,000 waa dadkeennii waa raadinaynaa laakiin waxaa yaab leh in 5,000 oo hooyo iyo 5,000 oo aabana ay maanta faraxsan yihiin ciyaalkii CBB da nimankii is jeclaatay iyo naagihii nimankii jeclaa ay leeyihiin maxaa loo soo bandhigaa war ma 5,000 oo hooyo 5,000 oo aabbi 5,000 oo wiil ma shakhsi farmaajo la siisanay adiga shakhsi farmaajo loo caawa qoorta laabi karo ma dal Soomaali siisanay waana sirteen waana haligteen ilaahayna waa idin ceebay adduunkana waad ka hor ceebowdeen ummaduna waa idin nacday qoladana minority-ga ah oo maalin hore inta sawir soo qaadeen waxay leeyihiin farmaajo 30,000 like buu helay Xasan Sheekhna wuxuu helay 5,000 like uu helay like haddii like 40,000 iyo 50,000 catooshara helo gabadhii uu qabay catooshare magaceedu muxuu ahaa maslaxo way heshaa wadankan like iyo share madaxweyne laguma noqdo like iyo share guri ma dhisaan dalkan like iyo share waa ka weyn yahay hadafka laga leeyahay Soomaaliya 30 sano bursan 30 sano dalalka caalamka kadib dhacday share iyo like way ka weyn tahay hamigiina iyo hankiina kor ha loo qaado nin jecelna anaga kama shaqeeno naag nin jecelna anaga kama shaqeeno
annaga qarankaasa jecelnahay xasan sheekh ilaahay ha garab galo dalkan wuxuu kusoo siyaadi kara uu kusoo siyaadina mid ka xigo insha allah hadduu xataa reer diin yahay waa shuminaynaa waa dharbaaxeena waa u duceynaynaa walaalkeen waaye laakiin dictator ummad siraayo oo gabdho yaryariis oo qaangaarin iyo nimanaan qaangaarin iyo gabdho naaga iska garoobo nolosha ka jajabtay nin iska jeceliina annaga dariiqaas waan ka leexanay wiilashaana waa wala keeni doonaa wiilashu aan kugu soo celsha muhiimadda boontigeege wiilashu ma dhinteen haa ma dhaawacmeen haa ma la caasuuqay maya ma baaba'een maya hooyo aabe ayeeyo awoowe caruurta waa la keenayaa iyagoo nabad qabay imaanayaan intii dhimata allah u naxariisto intii nool mataqaana caafimaad iyo cimri allah siiyo intii dhaawacantana allah u bogdheyo warka waa intaas ku dhaya haddii kale xasan eritrea tagay xasan muxuu aadi lahaa ruushka mu aadi lahaa xasan kiyef ma ka sugaysa kiyef ciidamada eritrea la geeyo soo celinaa hadafkii laga lahaana ninkii lahaana ijaar uu ku jiraa ilmahaasna meesha ku xayiran maayaan insha allah asaga farmaajihii soomaaliya dambe madaxweynahan isma arkayaan dalkan aan u tashanno oo diintan aan u tashanno oo dadkan annaga aan u tashanno